السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا عشر كيني لوات مركالو برناي كمبيوتر كارهان مايكروسوفت ويندو. عشر كيني هروحين كسر شرحني سيدا مركزي لو سو كعيو كمبيوتر ويندو سي لو قري وحوي ستاندر ايكونياشا sida loo soo celiyo waxa weeye standard icon sidoo kale sida loo soo celiyo sidoo kale waxyaabaha ku soo barano waxa kamid ah to change the appearance of standard icons in markaasi standard icon-yaasha appearance-ga muuqaalka laga bedelo. Okay, sidoo kale waxaanu ku soo qaadanay to change the background of desktop shaashada sawirka saaran oo background ah soo inaad bedesho oo in laga bedelo. sidoo kale waxyaabaha inuu kusoo sharaxnay inuu kusoo qaadanay casharkeeni koowaad waxaa kamid ah to lock or unlock the taskbar kan loo gareeyo sidoo kale haduu loo gareysan yahay inaad furi karto oo unlock aad ku sameyn karto. Okay, sidoo kale waxyaabaha inuu kusoo baran waxaa kamid ah remove taskbar by using mouse if it is not locked. waxa weeye in taskbarka la remove gareeyo oo moving lagu sameeyo la dhaqaajiyo afarta dhinac la geeyo oo shaashada oo qaybta hoose haduu taskbarku waa ka qaybta hoose buu yaalaa to halka in la geeyo dhinaca sare in la geeyo dhinacaas kale ee leftiga in la geeyo. sidoo kale waxyaabaha inuu kusoo qaadan aynu kusoo qaadan waxa kamid ah aynu kusoo barana casharkeeni hore to hide automatically taskbarka in si automatically loo qariyo. sidoo kale aynu kusoo baranay oo qodobka ugu dambeeyo wuxuu ahaa to active start button-ka inaad soo kiciso aad ka shaqeyso. insha Allah caawa shirkiina wuxuu ka bilaabanayaa numberka 10 waa numberka 10 ayuu ka bilaabanayaa shirkiina caawa. so waxaan noo qoran how to arrange applications and icons on the desktop. waxa weeye marka in la hagaajiyo icon-yaasha iyo waxa weeye application-yaasha ee dul saaran shaashada sida loo hagaajinayo automatically in loo hagaajiyo. waxa weeye waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye icon-yaashan application-yaashan so waxyaabahan wax isugu jiraan icons iyo applications isugu jiraan. so marka waxa weeye in la hagaajiyo sida loo hagaajinayo is automatically inaad hagaajiso. saalaan hadda waxa laga yaabaa midka haddii xaggaas uu yaalo kan isaan xagga uu yaalo kan isaan xagga uu yaalo sidaan oo kale shaashadu markay tahay waxyaabaha shaashada saaran sida oo kale aysan u nidaamsanayn. okay, oo aysan markaa sida ay yihiin ay u kala fog yihiin mid meel uu yaalo so in si automatically inaad mid aad soo celiso oo halkaas soo dhigto de waxa weeye waqti dheer bay ku qaadanaysaa so inaad baraso si automatically oo hal mar inaad ku soo celiso. okay, so marka sida ayaan u soo celin karnaa insha Allah waxaan maraynaa laba wado wadada ugu fudud aad hadba qaado. so markuu horeyso waxaad tagaysaa meel banaan tagaysaa oo shaashad kamid ah halka oo kale tagaysaa. okay, kadib waxaad leedahay right click markaad dhahdo waxaad ka dooranaysaa view markaad ku dhufato waxaad imaanaysaa meeshay ku qoran tahay how to arrange icon-yaasha dul saaran shaashada markaasi inaad si automatically aad u hagaajiso. then halkaas aad check aad saaraysaa oo aad ku dhufanaysaa then oo kuwa icon-yaasha marka sidaas ay ku hagaagsan yihiin. kuwa haddii xagga anigaan geeyay bay usoo laabteen waa kuwa halkoodii bay kusoo laabteen. okay, so haddana waxaan doonayaa markaa inaan idin tusiyo wadada kale markaas adiga aad ku hagaajin karto. horta waxa weeye icon-yaasha lama jiidi karo haddii markaasi auto arrange icons haddii check ay saaran tahay oo figure halka ay saaran tahay so lama jiidi karo lama hagaajin karo. so marka meesha haddaan ku laabanayo right click view baan leeyahay halkaas waxaan ka qaadayaa checktaas ayaan ka qaadayaa then leftigan qabanaya markaas u dulgeeyo icon-ka leftiga qabo gacanta leftiga qaybta leftiga muuska qabo then ka baadina u jiid. okay, marka jiidaysa dulgeey bas leftiga qabo jiid marka. okay, waxaan rabaa marka hadda inaan hagaajiyo icon-yaasha inaan isku hagaajiyo aan nidaamsanaan ka dhigo. okay, mana marayo waxa weeye mana isticmaali doono right intaan dhaho view ma isticmaali doono laakiin qayb wada kale ayaan mari doonaa insha Allah ila soco.
okay meel banaan tagaya markuu horeyso right kan leeyahay then waxaan imaanayaa qaybta hoose ee view ka hooseyso okay sort by aan imaanayaa sort by markaan imaado then enter name size item type date modified hadba aki aad jeceshay ku dhufo soo hadda name ayaan ku dhufanayaa waka wade waxa weeye sidaas markaa aad ku hagaajin kartaa labadaas wada haddii aad right kaliya dhahdo oo adiga view aad tagto oo halka afig aad saarto way hagaagayaan icon-yaasha مثلا هذا هذا أو right click هذا هذا then of sort by إماته أو name is من أنت عمد أتقول فته then وهجاجيان ودي أرجعشان أوكي وحين نصار كنا إن شاء الله قلب كلامنا هو صحيحه أي نصار كنا مسكين وصارن قلب صحيح وحاول to display in loss on both item is item ياشا وحياة مركزي icon ياشا شاشة بالسارن وحاول in loss on both by using another استعمال مركزي in loss on both large icons inaynu ka dhigi karno waxa weeye ko markaasi balaaran oo waaweyn inaynu ka dhigi karno sidoo kale medium icons markaasi dhexdhexaad inaynu ka dhigi karno sidoo kale small icons inaynu ka dhigi karno small icons waxa weeye icons inside loo yareeyo okay sidee marka icons shaashada saaran large icons loo dhigi karaa medium loo dhigi karaa small loo dhigi karaa okay waynu is arkaynaa insha Allah okay yala socod okay iconation hadda waxa weeye waxa laga yaabaa small inay yihiin so waxaynu ka dhigi doonaa insha Allah large icons oo ko waaweyn baynu ka dhigaynaa oo balaaran baynu ka dhigaynaa so waxaynu ka dhigaynaa sidoo kale medium dhexdhexaad baan ka dhigaynaa sidoo kale small baynu ka dhigaynaa insha Allah ila socod si adiga u sameeyso markuu horeyso meel banaan tag okay right click da then ka bacdina halka view ku dhufo view markaad ku dhufto geeska imaw halka waxaad ugu jeedaa waxa ku qoran large icons haddii large icons aad rabto inaad ka dhigto ku dhufo halka haddii medium aad rabto halkaas ku dhufo haddii small aad rabto halka ku dhufo okay aan dib u soo celi markuu horeyso right click then view ka dooro halka kabacdi hadda waxaan ku dhufan doonaa waxaan dooranay insha Allah large icons inuu large ugu dhigno icon-yaasha haddaan kaliya aan ku dhaho dhammaan icon-yaashana waxay noqon doonaan ku large ah oo waaweyn bay noqon doonaan had bal aan ku dhufto halkaas arag wixii dhici doona okay icon-yaasha waa kuwa awal maxay ahaayeen small bay ahaayeen so then hadda waa large icons okay haddana meel banaan siga insha Allah waxaan ka dhigi doonaa medium icons then view and tagaya then kadib waxaan ka sii tagaya medium icons okay waxay noqon doonaan kuwa iska dhexdhexaadsa okay large ma waxa way small ma waa medium dhexda bay ku jiraan okay so haddana waxaanu ka sii dhigaynaa small icons right click view then waxa weeye small icons waka small icons so marka sidaas ay marka icon-yaasha large aad u dhigi kartaa small aad u dhigi kartaa waxa weeye medium aad u dhigi kartaa okay waxaan u gudbaynaa numberka xigo kuton baynu joognay waa 12 waxay noo qoran 12 to hide in la qariyo all icons dhammaan icon-yaasha on the desktop shaashada waxyaabaha shaashada dul saaran icon-yaasha dhammaantood inaad qariso okay si aad u qariso markaadba waxaad tagaysaa meel banaan okay waxaan doonaynaa waxyaabahan shaashada saaran oo dhan inaynu qarino oo shaashadaasi nadiif aynu ka dhigno so markuu horeyso meel banaan ima halkaa ah oo meel banaan tag hadba halkaas way banaanta waatay kartaa so hadba meeshii banaan adiga flairtaadii aad keen karto geyso then kadibna right click there marka right click aad dhahdo view ka dhufo view markaad click aad ku dhahdo view aad ku dhufato waxaad imaanaysaa qaybta oo si qayb ka sareyso ay ku qoran tahay show desktop icons show maxaa weeye oo soo muuji okay hadda mina waxa weeye way inoo muuqdaan waa kuwa meesha inoo saaran laakiin haddii halka ay checktada yirista aynu ka qaadno check aynu ka dhigno oo sixtaanka yaradaynu ka qaadno aynu kali ku dhahno just waxa dhacaya dhammaan icon-yaasha dhan way qarsoomi doonaan bal aynu tijaabino okay kali waka shaashada ewer soo ma jeedino de wixii dhan way baxeen okay sidaan ku soo celinaynaa marka waa qodobka soo xigwe waynu soo arkaynaa qodobka xigwe insha Allah okay to restore waa qodobka 13aad waa to restore in dib loo soo celiyo all icons of the desktop dhammaan icon-yaasha shaashada saarnaa in dib loo soo celiyo had shaashadeeni waxba nooma saarna dhammaantood waxaan ku sameynay waynu qarin oo hide baynu ku sameynay so si aan u soo celino meel banaan tagaynaa
so then right click ده كبعدنا view then كتبنا halkaas ما show desktop icons meeshaas waxaa saaraysaa check out saaraysaa bas خلاص sidaas markaa aad ku soo celin kartaa okay haddii kaa qarsoomaan misena waxa weeye ay qarsoon yihiin dhammaan icon-yaasha oo dhan okay waxaynu is arkaynaa insha allah qodobka xigo ayaynu is arkaynaa waa qodobka 14 waxaan oo qoran to change in la bedelo waxa weeye mouse pointer flatirista ani haddaan isticmaalayo oo midda ah okay inaynu bedelno or misena waxaa loo yaqaana mouse arrow laba magac way leedahay weliba waxaa jira magac saddexaad waxaa loo yaqaanaa mouse pointer mouse arrow mouse cursor ayaa loo yaqaanaa flartaas ayaan markaa aynu iska bedelaynaa hadda gacan waa gacan weyn flartayna hadda nooca flarta waa gacan عادي so وينو بدلينا سيدا ام فلارتا موسك انو كو بدلي كرنا so waxaynu tagaynaa insha Allah wada sahlan may lawada ayaan markaas aynu ku tijaabinaynaa lawada ayaan tagaynaa insha Allah markuu horeyso wadada ugu horeyso ugu sahlan waxa weeye inaad meel banaan aad tagto right click aad dhacdo then waxa markaasna personalize aad ku dhufto personalize markaa ku soo halka markaad joogto kiiska dhinaca tag waxaad tagaysaa change mouse pointers then ka bacdan waxa ku dhufanaysaa waxa weeye qaybta ugu hooseyso ee browse then waa ku aflaarihi halkaas ka sii wadaysaa okay halka hoose halkaas waa kuwan saasuu badan yahay haddii kor arabtana inaa kor soo aadana halka haddii arabtana waxa weeye sidaas ku tagi kartaa okay flartin noocaasaan ka dhiganaynaa insha Allah haddii markaas sida aad u doorato then waxaad imaanaysaa open kadibna waxaa leedahay apply then kadibna waxaa leedahay okay waa taa flarti way isbedesho awal gacan bay ahayd noocaas isku bedeshaa okay waxaynu is arkaynaa waddo kale inaynu tagno ayaan isku dayaynaa wadada kale waxa weeye waxaynu tagaynaa inshaan aynu furaynaa control panelka ayaan furaynaa double click dul tag then kadib waxaynu kasii tagaynaa meeshay ku qoran tahay hardware and sound waa halka hardware and sound then hardware and sound markaynu kusii dhufano waxaan kasii dooranaynaa mouse then waxaan kasii dooranaynaa meeshay qoran tahay pointers then kadibna waxaan imaanaynaa pros then waa halkay joogno soo okay nooca gacantaas ayaan ka dhigaya flarta noocan isku bedeli doontaa insha Allah kadibna open leeyahay then waxaan leeyahay apply then waxaan leeyahay okay so iska close gray waata flarti waa soo bedel okay waxaynu is arkaynaa insha Allah qodobka xigo balaynu isla eegno qodobka xigo ayaan isla eegaynaa insha Allah okay qodobka xigo waxa weeye waa qodobka 15aad 15 waxay noo qoran to change in markaa la bedelo waxa weeye the behavior of mouse qaab dhaqanka mouse-ku uu dhaqmayo sida mouse-ku markaa loo isticmaalo qaab dhaqankiisa isaga loo isticmaalayo maybe in wax laga bedelo okay so waxaynu doonaynaa insha Allah mouse-ka behavior-kiisa inaynu bedelno sidee ayaa markaas aynu ku bedeli karnaa the behavior of mouse so waxaynu tagaynaa insha Allah control panelka ayaan soo furnaynaa control panelka ayaynu tagaynaa double click aan leenahay waynu gudaha u galaynaa then kadib waxaynu kasii dooranaynaa hardware and sound then waxaynu kasii dooranaynaa mouse okay halka markaynu joogno markaa waa kaa so waxaan check aan saaraynaa meesha qoran tahay switch primary and secondary buttons halkaas ku dhufanaynaa haddii halkaas aynu saxno te waxa weeye mouse-ka uu isbedelayaa waxa la yaabaa qaybtaas haddii colorka u yeeshto in qaybtaas unba waxa meel haddii aad click aad ku dhaysid oo kale laga halkaas unne ku shaqeyso oo qaybta dhexe barankii weynaa inuu ku shaqeyn waayo okay marka halkaas hadaa soo saxdo oo halka aad saxdo then sidaas aad ku bedeshay waxa weeye the behavior of mouse sidaas aad ku bedeshay sidoo kale meeshan oo kale hadda waxa weeye speedkiisa inaad low aad ka dhigto inaad fast aad ka dhigto taa adigu ugu xirantahay laakiin halkaas haddii aad saxdo the behavior of mouse sidaas ayuu markaasi ku bedelmayaa so then waxaan leenahay hadda okay ma rabno inaynu behaviorka aynu hadda sii bedelno laakiin waa iska simple adigoo bedelin kartaa okay waxaynu galaynaa insha Allah waxaynu gudbaynaa qodobka xiga ayaynu gudbaynaa qodobkeeni xiga waxa weeye waa su'aasha waxa weeye waa 16 waa numberka 16aad
okay date and time setting in waxa weeye la hagaajiyo la saxo waxa weeye taariikhda iyo waqtiga date and time setting taariikhda iyo waqtiga inaynu saxno halka waxaa inoogu muuqda inaynu insha Allah markaynu taariikhda iyo waqtiga aynu hagaajinayno laba meel inaynu laba qodob mina laba step inaynu isticmaali karno step waa ka waxa la furay control panelka then waxa laga dooranay clock language region meesha qoran tahay then waxa laga sii dooranay waxa weeye date and time then kadibna waxa lagu dhufanay change the time and date then waxa weeye waa la saxiyaa kabad okay apply okay qaabkaas waxa weeye waa qaab ugu dheer weeye laakiin wadada ugu yar ee waxa weeye okay waxa tagaysaa qaybta geeska ee right-ga attack ee ku dhufo ee taskbar-ka ee taariikhda date-ga taariikhda iyo waxa weeye waqtiga ay saaran yihiin then ka baadana ku dhufo change kaliya ku dhah then ka baadana ku sii dhufo change date okay change date and time setting ku dhufo then ka baadana laba jeer ku dhufo meeshaas kaliya hadana kaliya waxa weeye it again mar kale ku dhufo halka sidaas wadada waad mari kartaa wadada kalena waad mari kartaa insha Allah hadaba waxaan sameeynaa insha Allah wadada ayaan marinaa okay waxaan doonaynaa insha Allah inaynu taariikhda iyo waxa weeye taariikhda iyo waqtiga saacadaba intaba inaynu hagaajino okay markuu horeyso waxaynu tageynaa control panelka ayaan tageynaa click double click baa leenahay in waxaan ka sii tageynaa halkay ku qoran tahay log language and region then waxaan ku sii dhufanaynaa qaybta date and time so waxaan ku dhufanaynaa marka change date and time then waka okay every okay hadda waa 20 waa 20 ka dhigaya okay waa 20 waa dacawi 20 ka dhigi karaa adiga waa ka halkaas waxa weeye waa plus ina saacado kordhiso qaybta hoose ina saacadina hoos soo jirto okay then okay leedahay kabadina okay leedahay خلاص wadadaas waa raaci kartaa oo aad mari kartaa oo isticmaali kartaa wadada ka dhow waxa weeye qaybta geeska halkaas oo majeedid halka imaanaysa qaybta hoose taskbar-ka dhinaca right-ga then ka baad kaliya ku dheh ka baadna ku dhufo change date and time then aad mar kale ku dhufo change date and time okay so every kala deedii ku laatan ka dhigni 22 igay okay saacaduna 4 saac waxay dhigaysaa 5 saac no 6 saac oo kale okay then ka baadna waa ka mid waxa weeye inaad saacadii waqtiga wax uun ka bedeli karto oo adigaas hadaa sixitaan u baahan aad sixi karto okay qodobka sida ayaan ugu gudbaynaa insha Allah waxaynu ugu gudbaynaa qodobkayga ayaan ugu gudbaynaa qodobkayga waxa weeye to change inaad bedesho your account picture-kaaga waxa weeye waa ka account-kayga hadda sawirka ayaa ii saaran account-kaygii sawirka ayaa ii saaran marka sawirka ayaa doonayna inaan bedelo okay so maxaan sameeynaa markaan doonayo account picture-kayga inaan bedelo okay so waxaan tageynaa meel banaan tageynaa wadada ugu fudud raacina insha Allah right kale aan leenahay then waxaan leenahay personalize then waxaan ka sii dooranaa halka hoose okay change your account picture hadda sawirka ay ii saaran account-kayga so hadda waxaan saaranayaa sawirka kubadda ayaan ku dhufanayaa waa ka marka sidaa sawirka adiga u doorato then halkaas ku dhufanaysaa change picture marka sidaas u dhufto te waxa weeye sida aad ku bedeshay iska close query then start button taas aad aragto waa ka account picture-kaagi marka sidaas aad ku bedeli kartaa insha Allah waxaynu sarkeynaa qodobkayga waxa weeye to set in marka adiga aad saarto okay waxa weeye your picture on the desktop sawir adiga aad leedahay oo kale ina shaashad aad dul saarato so okay maxaynu sameynaynaa marka wayna soo sameeyeen way sarkeena insha Allah hadda waxaan doonaynaa insha Allah sawirka oo kale okay sawirka ayaan doonaynaa marka inaynu shaashadaynu saarno shaashada computer-ka hadda sawir kale saaran so waxaan isku daynaa inaynu sawir kale aynu saarno okay waxaan taginaa soo sawirkii waa ka saana u dulgeynaysaa flat marka nooca u dulgeyso right click then ka baadina ku dhufo set as digital background waka soo jeedid halka okay midka ma doonayno hadda midkaan aan doonaynaa inaynu saarno okay midka oo kale waxaan leenahay right click then kadibna waxaan leenahay set as digital background waka isbedeli doonaa waka soo jeedid okay adiga ugu xiran tahay sawirka adiga aad shaashada aad dul saarato adiga
aday kugu xiran tahay sidaasaad ku saari kartaa sawirkii aad doontid insha allah. Okay, waxaynu gudbaynaa qodobka xiga ayaanu gudbaynaa qodobka xiga ayaanu gudbaynaa. So qodobka xiga waxa weeye waa numberka 19 into sleep the computer markaas in la seexiyo. Tusaale computer adigoo isticmaalay hadii lagu waco kaali waxbaan la qabanaysaa misana kaala cashay misana hadii aad doonto muskushi hadii aad rabto in muskushi aad oo kale computerkii sida waxaad ku sameynaysaa sleeping waxaad leedahay waa u soo laaban doonaa waxa iskama daminaysid sleepinga ku sameynaysaa kadibna shaqadaas soo qabsanaysaa dan oo u maanaysaa waad ka xiisanaysaa. So to sleep the computer ina seexin karto. Okay, so waxaanu tagnaa markuu horeyso start button-ka tagnaa so halkaas ay ku qoran tahay hoose shutdown maaha dhinaca ishaas ayaan fureynaa. Think about it, halkaas waxaan ka sii dooranaynaa sleep. Hadda waan seexin doonaa insha Allah bal ila arkaa computerka sida ayuu okay waa ka haduu soo kacay. Okay, waxaan arkaynaa insha Allah qodobka xigo ayaan u gudbaynaa waa qodobka ugu dambeeya casharkeeni waa to activate afwan waxaan kusoo dari doonaa insha Allah. Okay, ilaa iyo 23 Guinea waa qodobka 20aad waxa weeye to active in la soo kiciyo laga shaqaysiyo waxa weeye the screen keyboard on the desktop. Okay, keyboardka screenka markaa shaashada la dul saarayo in markaasi adig aad soo kiciso. Keyboardka hadda midka caadiga inuu isticmaalno maaha mid kale ayaa gudaha ku jiro. So midka inaad soo kiciso waxaad tagaysaa start button then waxaad qoraysaa on screen markaad ku qorto then waxaad arkaysaa qaybta madaxa sare fiiri waxaa ku qoran on screen keyboard wuu inoo soo baxay. marka saa u dul tag double-kii laba jeer ku dhufo khalaas waa ka midkan ay waxaa loo yaqaanaa on screen keyboard. iska close garay. Okay, waxaynu gudbaynaa insha Allah shaqada xigto waxa weeye waa numberka 22 waxa weeye to start calculator in la soo kiciyo. Okay, waxaynu tagaynaa insha Allah start button-ka aan tagaynaa waxaan soo kicinaynaa start button then waxaan qoraynaa cal waa ku qaybta sare ka fiir markaa qorto halka aad ku qorto in madaxa sare uu kaaga soo muuqan doonaa. soo ku dhufo marka dhawaal kalik dheh halka waa ka. Okay, sidaas aad soo kicin kartaa start button tag kal ku qor then ka bacdina dhawaal kalik ku dhufo. Okay, waxaynu sarkaynaa insha Allah qodobka xiga kale waa su'aasha 22aad waa to change from the standard to scientific. calculator-ka inaynu markan soo kicinayno noqonee inta waxa weeye aynu halka aynu ku qornadeen waa ka. qodobkan waxa weeye markaa haduu calculator-ku uu yahay scientific haduu scientific yahay in standard laga dhigi karo midka caadiga haduu standard yahayna waxa weeye in scientific laga dhigi karo. then waxaan tagaynaa view aan tagaynaa then katibna view markaa tagto. Okay, halka hadda waxa weeye scientific aynu dooran waxaan ka dhigaynaa waxa weeye standard waa ka. view tag do standard yahayna scientific ina u bedeli karto waa inta markuu horeysa ku soo kici ka baadana view tag standard haduu standard aan ahayn haduu scientific yahay haduu standard yahayna scientific ka dhig adig waa dib qaybta adiga jeceshay hadba. Okay, waxaan gudbaynaa insha Allah su'aasha xigta aynu gudbaynaa waa su'aasha 23aad waxa weeye to create in markaasi la abuuro a new for pi. Okay, pi mouse. Okay, means by using mouse anagoo isticmaalayno mouse-ka inaynu markaasi aynu abuuri karno misena aynu samayn karno new folder aynu samayn karno insha Allah. su'aasha waxay noqon doontaa su'aasha ugu dambaysa casharkeeni. Okay, waxaynu tagaynaa meel banaan ayaan tagaynaa waxaan leenahay right click then waxaan kasii dooranaynaa new then waxaan kasii dooranaynaa folder. marka folder kaliya aan ku dhahno hadda waxaan rabnaa inaynu qorno magacii aynu bixin lahayn. tusaale waxaan bixinayaa okay casharka labaad. Okay, casharka labaad markaas aan u qorto oo de waxa weeye ciwaankii markaad sida folderka marka magaca sida aad ugu bixiso waxaad leedahay enter kadib khalaas
sidaas marka aad ku abuuri kartaan ku celin markii la right click meel banaan okay new then ka bacdina folder magaca doonto saawo class magaca doonto marka saad u qorto meel banaan okay meel banaan tag darabto labo jeer meel banaan saa u tag adoo inta aan lihin labo jeer kale ku dhameesha banaan waa ka okay waxaan